shirkanagan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay maanta ee ay u fadhiyaan culamada ahlu sunna wal jamaaca ahli salaama wuxuu ku saabsan yahay dhibaatadii ka dhacday guraceel ka dhacday dad badani ay ku hoobteen. awalan waxaan rabnaa marka ugu horeyda inaan u ducayno dadkii meeshan ku geeriyooday oo ka koobnay 3 qaybood: dad shacab ah iyo dadkii ciidanka Soomaaliya ciidanka xoogga ee Soomaaliya iyo dadkii la qalday oo loogu sheegay arrintan inay arrin jihaad tahay ee sidaas ku dhintay. saddexdoodaba waan u ducaynaynaa ilaahay inuu u raxmado. dadkii la kadiyay iyo dadkii dawladda mataqaanaa dalka difaacaysay ee dadweynaha difaacaysay ku dhintay iyo shacabka wixii ayaguna ku dhintay intaasba ilaahay naxariistiisa siiyaan leenahay. intaa kadib waxaan rabnaa meeshaan inaan dhowr qodob uga hadalno. culamada dhammaantood ka wada hadli doonta. qodobka ugu horeeya wuxuu ku tacalluqaa dagaalkii meeshan ka dhacay, caqiidad difaaceeda ma yahay iisa ma aan ahayn in dadka loo caddeeyo dagaal caqiida inuu ahay oo diinta islaamka lagu difaacayay oo dadkii dagaalkaas keenay ee sababka u noqday in dagaal ka dhaco oo dad badan loogu sheekeeyay inay diinta ku difaacayaan oo waliba jihaad loogu tilmaamay oo waliba loogu tilmaamay qofkii lagu dilo iyo qofkii asagu ku dilaba labaduba inay ahlu janno yihiin. dagaalka noocaas u dhacay ee guraceel lagu soo qaaday ee dadkii lagu dilay laguna barakiciyay macaqiida lagu difaacayay mise dagaal wuxuu ahay bannaanka ka ah bannaanaanshihiisu diinta islaamka bannaanka uu ka yahay. waxaan leenahay culamada ahlu sunna wal jamaaca anugu uga jawaabaynaa dagaalkaasu dagaal caqiida ma ahayn, dagaal diinta wuxuu anfacaya ma ahayn, dagaal diinta islaamka lagu burburinayo ahay, dagaal magac xumo u soo jiidaya dadka ahlu sunna wal jamaaca la yiri ee caalamka dhan cadaan iyo madow qof kastoo caqiidada saliimka haysta ahlu sunna wal jamaaca la yiraah dadkaas oo dhamo suura xumo ku ahay. dagaalkaasu dagaal diinta islaamka meel ka waafaqsan ma ahayn xaqnimo haddii la yiraahdo. maxaa yeelay haddii hadda gobolka la joogo ahlu sunna wal jamaaca waxaa loo yaqaanaa dadkii 2008 meeshan dagaalka ka bilaabay oo ka koobnaayeen culamaa u diin iyo dadkii shacabka ahay ee iska difaacay khawaarijtii dadka ku soo duuleen ee soo weerareen ee dhibaataynayeen dadkii iska difaaca magacaas khaasnimo hadda loo yaqaanaa. laakiin ahlu sunna wal jamaaca waa caqiido guud oo muslimiinta caqiidadoodu toosan tahay ka dhaxeeya way. dadkaasi ee dagaalkaas galay ee iska difaacay khawaarijta waxay ka koobnaayeen shacabka iyo culamadii joogtay gobolkan ee mudarrisiinta ahay ee caalimiinta ahay baa inta isu yimaadeen waxay go'aansadeen dagaalkaasu in la galaa inuu sharci yahay oo diinka iyo dadka lagu difaacayo. dadkii sidaas ahay wax shuqul ay dagaalkan ay ku lahaayeen ma leh. dagaalkan wuxuu ku salaysnay dagaal siyaaso ee mansib iyo maal iyo lagu raadinayo ku salaysan yahay. maxaa yeelay hadda ahlu sunna wal jamaaca gobolkan hadda aan joogno galguduud la yiraahdo amaba mudug la yiraahdo dadka al'aana madaxda ka ayagii waaye. gudoomiyaasha guraceel oo kale hadda dagaalku ka dhacay gudoomiyuhu ahlu sunna wal jamaaca weeye. waa raggii 2008 inta xabadda qaateen oo khawaarijta ku difaaceen al'aan xibnihiisa ku maqan yahay way. taliyaha booliska ee guraceel waa ahlu sunna wal jamaaca, ku xigeenku waa ahlu sunna wal jamaaca, garsoorku ahlu sunna wal jamaaca, matabaan waa sidoo kale, dhuuso mareeb waa sidoo kale. dhammaan taliyaasha iyo gudoomiyaashu ahlu sunna wal jamaaca weeye. waa dadka hadda lagu soo duulay oo la dhibaateeyay oo shacabkii korkooda lagu dhibaateeyay ee huri weyda markaas inay difaacaan. marka ahlu sunna ma isku soo duulaysay ayadoo beledkii gudoomiye ka ah, ayadoo taliye ka ah, ayadoo oo ka ah jananada ku jira ay kamid yihiin oo ciidamada wax hogaaminaya ay jananada yihiin. ahlu sunna ma ayadu isku soo duulaysay
ma ahan ahlu sunna al'aanay madax ka tahay haddana joogtaa hawshan ay ku jiraan marka dagaalkaasi ma ahayn dagaal ahlu sunna wal jamaaca iyo caqiidadeeda lagu soo qaadee dagaal dareeda u ahay dantiyaana dhibaatadaanu ka dhalata wey waxaan rabnaa marka waxaa jiray marka ashyaa badana ka dhashay dagaalkan ashyaa badan baa ka dhalatay dagaalkan markuu dhacay waxaa ka mid ah wixii ka dhashay oo dhibaatada sii kordhiyey dadkii ahlu sunna wal jamaaca ahaayeen ee caalamka kala joogeen ama dalka abadibadda waxaa loogu sheekeeyey oo qoladan duulaanka soo qaaday ay ugu sheekeeyeen dagaalku inuu dagaal caqiido yahay ayaguna dad xog ogaala ma aysan ahayn dhammaantood meediyahay soo galeen waxay yidhaahdeen dagaalku waa dagaal caqiido dowladdii ahlu sunno baabi'inaysa ayadaa xaaliqaynaysa annaguna dagaal baan gelaynaa sidaasay yidhaahdeen waxaan leenahay culammadaas waxaa ka dhimanaay inay ogaadaan xogta inay ogaadaan ilaahay wuxuu yidhi walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu adiga oon shayga ogayn inaad xugun ku rido shaygu markuu macluum noqdaa xugun lagu ridaa rajman bilghaybi ah horta culammadaas ku dhacday ayagoo inta baaris samayna dagaalku inuu dagaal caqiido yahay ama dagaal ahlu sunna wal jamaaca ay mataqaanaa lagu soo qaaday inuu yahay ayay iska jawaabeen loomana baahno ilaahay wuxuu yidhi walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum ilkadiba haadaa xalaalun wa haadaa xaraamun litaftaruu calaa alkadiba adigoon shaygu macluum markuu noqdaa xukunka la saaraa haddii adoon shayga ogayn aad xugun saatana rajman bilghaybi yaa la yidhaah culammadaas waxaan leenahay nimankaas ee dagaalka soo qaadana ha kedinina adinkuna ha kadsoominina adinku ha kadsoomininoo wax aadnan sharci aadnan uga ogayn amaan cilmi aadnan ogayn inaad iska gantaan ha ku kadsoomina ayagana ha kedininoo ha ku sii fogaynina dagaalka xaqdarrada ha ku sii fogaynina culammadaas sidaasaan leeyahay ha laga toobad keeno aniga hadda idinla hadlaaya waxaan ahay guddoomiyihii garsoorka galguduud oo dhan baan ahay milma galabtii dagaalku bilowday ahlu sunna wal jamaaca iyo khawaarij bilaban gala arbacada ee 2008 ahayd ilaa waqtigaas iyo 2015 markii meeshaan khilaafka iyo dhibaatadaanu ka bilaabatay aan hawshaas wadnay inta hadda iga soo horjeedana waa la wada mid inaad marka annaga nooga warantaan xaaladda guraceel iyo dhuusamareeb inaad nooga warantaan oo korkanaga aad rajman bilghayb ku samaydaan adinkay ceeb idinku taha marka ka noqdo oo xaqiiqada raadiyo oo annaga ha noo meerinina waa joognaa waana naqaanee adinka cilmi idiin dhimana cilmigaas raadsada qodobkaas waa saas qodobka labaad oon ka hadlaayo meediyaasha waxaan ka maqlayaa nimankii ama itixaad ha la yidhaahdo ama ha la yidhaahdo ixtisaam raggii oon hadda ahlu sunna wal jamaaca iskhilaafsanaayeen baa markay maqleen dagaala guraceel ka dhacay waxay u fahmeen ahlu sunna wal jamaaca in la cirib tiray markaasi waxay leeyihiin hala dhammaystiro adinka ruuxiina ogaala idinka maqan wax adinka ruuxiina rajman bilghaybi idinku dhacdo fudaydkii leedinku yaqaanay aad ku dhacdeen meeshaan ahlu sunna kamana maqana lagamana wadin al'aanay guddoomiye ka yihiin taliye ka yihiin garsoor ka yihiin niman yahow sidii yaan raggu kale yahay ha ku kadsoominina ushu geedkeedii ku taale ahlu sunnana ma ahan nin oo muraad leh ma ahane ahlu sunna wal jamaaca ayada ardada dhan haysata dhuusamareeb ayagaa madax ka guraceel ayagaa madax ka matabaan ayagaa madax ka hadday taliya tahay hadday guddoomiye tahay dowladda soomaaliya u aamintay inay taliyaal noqdaan galmuduga u aamintay iyo madaxweynaheeda u aaminay inay madax noqdaan nimayo adinkuna waa fududihiina fudaydkiin iyo idinla teginoo meesha ahlu sunna wal jamaaca lagamana bixi doono adinkuna taasaan idin leeyahay waxaan rabaa taariikhdiina insha allahu waa la sheegi doonaahe waxaad ogtihiin 2015 ayaa dagaalkii oo khawaarijta lala galay ayuu bilowday 2008 iyo bilowday ilaa 2015 ahlu sunna wal jamaaca way isku duubnaayeen wax khilaafu kama dhex jirin 2015 waxa soo dhex galay waxa la yiraahdaa xalaalun li wa xaraamun calayka soo dhex galay xalaalun li wa xaraamun calayka waxa la yiraahdaa waxaan adiga kuma banaano laakiin aniga way banaan yihiin masibkan adiga kuma banaano adiga way banaan yahay xalaalun calayka wa xaraamun calayka la yiraahdaa hadayna sida taa waxa kugu daliila ninkii ahlu sunna wal jamaaca soo guraceel madax ka oo matabaan ka oo dhusareebka hadii la soo weeraro soo macnaheedu ma ahan adiga xalaal kuma ana xalaaliye mansibka saas horda doonidaas dhibaato keentay
waxaa la ogyahay maanta keliya maahan inta dhibaatadan ay dhacday waxay ka dhacday Guraceel 2015 ka dhacday waxay ka dhacday Dhuusamareeb ka dhacday waxay ka dhacday Caabud Waaqay ka dhacday waxay ka dhacday Godin Labay ka dhacday waxay ka dhacday Bangeeli ka dhacday waxay ka dhacday Xaraale ka dhacday marka dhibaatadan waa dhibaato soo socotay waxa loo daliisho karay in dagaalkan uu dagaal mansib doonay hana taasa kamida markasta wuxuu ku dhamaanayay in inta la yiraahdo aan wada hadalno ama wax lagu helo maal lagu helo ama mansib lagu helo haatan asagii sidoo kale ku dhamaa hadii waxba la soo ogol yahay hadaan wax la soo ogolay waa gaarkeedii dagaalkan dagaal caqiida maahan dagaal daneed way dagaal dunya waaye ninkii muslimahow ha ku qatalmin waxaadan ogeyn ha jawaabin dadka culimada geesaha ka soo hadlaaya waxay og yihiin dawladda ay la joogaan inaysan banaanayn in la dagaalo dadka hadda gobolada ka soo hadla ama caasimada ka soo hadla dawladda ay joogaan in lagu kaco oo lagu baxo oo la noqdo buqaad la noqdo kharij la noqdo lagu baxo dawladda inaysan banaanayn waa og yihiin maxay ku baneeyeen Guraceel in la ciqaabo yaa yaqaan Guraceel dadka lagu ciqaabo shacabka oo dawladda lagu dagaalo waxa banaynaya anagu kolna anagu ma naqaan manaba jirto laakiin waxaan leeyahay ka laga fiirsado waxa kale oo haddana ayada ruuxeeda aan baaq loo diraya qof kasta oo u fahmay arrintaanu inay tahay arrin caqiido ee sidaas uga qayb galay ama shacab ha ahaado ama saraakiil la qalday ha ahaadee waxaas aakhira fiican idin geymayaan iska dayaan leena waxaan leenahay dadkii loogu sheegay dagaal diineed inuu yahay oo dagaal caqiido yahay oo duubaan liman qatalahum aw qataluhu yay ku kadsoomen dadkaasna baaqaasan u diraynaaho waxa imaanaya zaman aakhirka waxa imaanaya ducaatun ala abwaabi jahannama man ajaabahum ilayha qadafuhu dad waxa jira jahannama saas ugu meersan oo qofkii u yimaado ku tuuraya macna asbaabtii waaye waxaan leenahay waxyaalaha hadda socda jahannama lagu gaara maahane mansibna lagu gaari ma maalna lagu gaari ma ilaahayna lagu gaari ma halaga leexdaan leenahay waxaan rabaa inaan culimada badan fadhida qodobada dad badan warkan u ayaa loogu tala galay inaan ku soo gaabiyo intaasna billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh rahim